tartan koobka adduunka afartii sano hal mar la qabto ayaa dabayaaqada sanadkan ka dhici doona waddanka Qatar. Wuxuu noqon doonaa mid xiise gaar ah xambaarsan dhanka Soomaalida, maadaama ciyaartooyda qaybta ka noqon doona uu ku jiro wiil Soomaali ah. Sida caadiga ah, waddan kastoo martigelinaya ciyaaraha koobka adduunka wuxuu liiska kooxaha ciyaaraya ku soo galaa isagoo shuruud aan ku xirnayn si toos ah, halka dhammaan dalalka kale ay ku yimaadaan isla reeb. Xulka qaranka ee Qatar ku matali doona tartankan waxaa ka dhex muuqan doona ciyaaryahan ka soo jeeda Soomaaliya, horeyna aabihii uga tirsanaan jiray xulka qaranka ee dalkeena Soomaaliya. Akram Xasan Cafiif ayaa xitaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay ciyaartooyda lafdhabar ku ah xulka martigelinaya koobka adduunka. Wiilkan oo hadda 24 jir ah wuxuu xulka Qatar u xirtaa lambarka 11aad, wuxuuna ka ciyaaraa garabka bidix ee weerarka. Wuxuu magaciisa si weyn u soo shaabaxay kadib markii uu codar ka dhigay tartankii koobka qaramada Aasiya ee dhacay 2019 markaa uu kaalin weyn ka qaaday guulihii Qatar ay ka gaareen koobkan ay ku guuleysteen. Xilligaas Akram wuxuu dhaliyay mid ka mid ah 3 gool oo ay Qatar ciyaartii finalka uga badisay xulka Japan. Sidoo kale wuxuu aad uga dhex muuqday tartankii wadamada Carabta ee dhacay 2021. Xiddigan wuxuu ciyaaraa kooxda Asad ee ka tirsan horyaalka dalka Qatar. Markuu bilaabay xirfadiisa waxaa lagu tilmaamay inuu noqon doono ciyaartooy mucjiso badan soo bandhigi kara. Akram waxaa dhalay Xasan Cafiif ah, ciyaartooy Soomaali ah hore uga tirsanaan jiray xulka qaranka dalkeena Bersamaadkii. Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ka mid ah ciyaartooydii hore Soomaaliya ayaa goor sii horeysay BBC-da u sheegay in Akram aabihii uu ahaan jiray nin si fiican looga yaqaan xirfadda kubadda cagta. Xasan Cafiif wuxuu ahaan jiray ciyaartooydii qaranka Soomaaliya iyo kooxda Ruseed. Wuxuu ahaa weeraryahan aad loo yaqaan dhanka Soomaalida. Waxaa laga soo xushay ciyaartooydii ka soo jeeda magaalada Kismaayo. Anigana waxaan ka mid ahaa dadkii nasiib ku yeeshay inaan ka garab ciyaaro, ayuu yiri. Xasan Cafiif ayaa ka ciyaari jiray horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya, isagoo lafdhabar u ahaa xulka qaranka dalkiisa ama dalkeena Soomaaliya iyo kooxdii Ruseed. Dhan kale, Biriq ayaa sheegay in Akram uu sidii aabihii yahay ciyaartooy xirfad sare leh, mustaqbal wanaagsan leh. Waa ciyaartooy daayar adduunyada oo dhan ayaa maanta aad u daneynaysa Akram Cafiif. Ciyaartii finaalka koobka Aasiya wuxuu Akram muujiyay ciyaar heer sare ah. Marka aan runtan aan ka sheegno, waxaan heli karnaa rajo wanaagsan, heer sareysa ayuu ka gaari karaa kubadda cagta dunida, ayuu sii raaciyay. Akram Cafiif ayaa magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar ku dhashay 18 November 1996. waxaan hadda sugnaaba waa qaab careedka uu la soo shirtagi doono dhacdada koobka adduunka isugu imaan doonaan ciyaartooyda dunida ugu caansan, kuwooda ugu wanaagsan Qatar isugu tagi doona, iyo Akram Cafiif oo hogaamiye ka ah waddanka martigelinaya dhacdada koobka adduunka Qatar.